qaadkii waxaan ahnay waa in la furo annakii madaxweyne xasan sheekh waan ku heshiinay arrimo kale u dhaxeeyeen golaha wasiirada Kenya iyo golaha wasiirada Soomaaliya oo xagga wasaaradda arrimaha dibadda loo aqaano Joint Ministerial Commission arrimahaasna way socdaan tusaale haddaan ku soo qaado arrinka wajeer dowladda Soomaaliya waxaa la weydiistay waa inay qalabeen ka sameyso boorka magaalada Muqdisho sidii diyaaradaha Turkiga aadaan wadamada kale waa inay qalabeen sameyso qalabeenta oo inay ilaaliso dadka security check fiican lagu sameeyo qalabka markii la sameeyo dowladda Soomaaliya ay diyaar ka dhigto waxay u yeeri ururka loo xil saaray ee wadanka Kenya oo leeyahay Kenya Civil Aviation Authority haddana way dhisayaan markay dhameeyaan qalabka dowladda Kenya ay ogolaato inuu sax yahay diyaaradaha waxay ka soo duulayeen xamar marka heshiiska Soomaaliya ka fuli waayo heshiiska hadalkaagu markuu wuxuu dhacay heshiiska Soomaaliya ka fuli waayeen wali arrimaheeda dhameystireen ma ka mufraan wali kullaba heshiiska midna waa muddo dheer midna waa marka arrimo waxa jiraan waqti qaadanaya labada dawladba marka laakiin xagga annaga waxaan ka sugaynaa inay dhahaan arrimihii aan ballan qaadnay inaan xagga garoonka magaalada xamar waa diyaar qaybta nabadgel suginta iyo diyaaradaha Kenya ay tagaan ku qancaan markaasna waan furaynaa